gobolka Sanaag loo yaqaan maakhiri waxyaabo kala duwan oo qosol badan ayaad ku arki doontaan bal reer Cerigabo sidee bay uga jawaabeen su'aalahaas kaftanka waxyaabo kala duwan oo qosol badan ayaad arki doontaan magacayga waxa la yiraahdaa Xuseen Jaamac Cabdi Xuseen Jaamac maadaama nin reer Sanaaga tahay su'aal baan ku weydiinaynaa maadaama nin in badan waay aragnimo badan Sanaagu leh oo in badan joogay luqadda maakhiriga ama afkan maakhiriga ee Sanaag inta badan deegaanadiisa laga hadlo waxyaabihii aad u soo joogtay ama kuugu la yaabka badnaa aad aragto maxaa kamid ah waxa kamid ahaa nin Caraba ayaa wuxuu keenay dooni raashina dabadeedna wuxuu keenay xiis iyo mayd dabadeedna wuxuu carabkaas yiri waxaan doonayaa in dhamasha iga iibisaan dhamas inay iga iibisaan aan dooni ka dhigto dabadeeto 3 bilood baa reer xiis iyo reer mayd xoolihii cunay ninku sitay gig ka siiyeen dabadeedna ninkii markuu 3 bilood joogay buu yiri waan iska tagayaa dabadeedna xaqiisii buu tagay xaqi belad carab ayuu tagay dhulkii carabta markaasaa la yiri akhuuqi balbooran markaasuu in kan tishti kadib روحوا حيسوا ميت سعيد علي كسو دو والله المقعد سعيد كسو دو channel سكريتش كارتا waxaan ku sugannahay Sanaag Cerigabo maadaama ka mid tahay dhalinyarada gobolka Sanaag ku soo dhaw channel aad iyo aad saaxiibo ku dhawaay Skrich Karta adigana Cerigabo ku soo dhaweynaa inkastoo barcooyo xagga kugu hogeyntii adigo imaada laakiin ku soo dhaweynaa halkan walaalin baa socota imika runtii gobolada kale aan tagayno Sanaag wanaga joogno runtii barnaamijkan waxa fududeysay safar salaama shirkadda socdaalka isku xidha Cerigabo iyo gobolada kale ka waran adeegyada shirkaddu idin qabato niyo shirkadda safar salaama shirkadda aad wanaagsan wali waxay ku fiican tahay xagga waxyaabaha kaargooga aad u wanaagsan tahay marka shirkaddaas badan bay soo kordhisay alaabo fara badan oo waqtiga on time ba inta badan ku geeyaan meelaha ay markay magaalada keenayaan su'aal shan ku bilaabay kaftanka intaad Cerigabo joogtay waxyaabihii kugu qosolka badnaa ee aad maakhirnimo kala kulantaa maxay ahaa niyo wallahi Cerigabo doorta dadku inta badan waxay ka aaminsan yihiin meel maakhiriyo waxay toole hadallada la soo dhigo ma garan laakiin dadkaygu saas ma si baalkeesne waxyaabaha laakiin way jirtaa waxyaabo imika tusaalaha kale adigoo halka fadhiya ba marka la doonayo in isku cusubto lagu galo adigoo kala imika yimid moogta dabadna xal warar waxay gaariga cusub soo galay iyo mar lagu hoos dhigo maay toolay maanta falaasad cusub baad keentay iyo waxa sheeka jirtay laba nin baa waxa dhacday magaxay bay yimaadeen oo reer galbeed oo Hargeysa yimaadeen Cerigabo yimaadeen dabadna inan bay meherdeedii fadhiisteen dabadna inantii baa inan u soo gashay markaasay tiri waxay aragtay in laba nin oo cusub meesha fadhiyaan moogta markaasay tiri ayaa heblaayo ii waran fiican tahay oo maanta laba falaasadood cusub baad soo baysatay markaasay tiri haa oo laba falaasadood cusub baan keenayo waliba tacasba shaahi qaboojisa marka weel kalaay ninka casaba weel kalaa moogta dadla markii ka baxday meeshii ka tagtay ayaa nin soo galayo markaasuu ninkii meel la fadhiyay nin baa la fadhiyo markaasuu yaaryaanayn meeshan iska kacay ninka leedka hadlayay iyo falaasada ilka markiis falaasada qaboojinaysa ma garanaysaa wanka ilka ale cas meesha ka carar la sidii magaalada ka carar marka way jirtaa waxyaabahaas Cerigabo aan bay ku yihiin inta badan laakiin saa uma sii foga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdikariin Aadan Maax naanasteedana waa Libaax Sanaag ku soo dhawow channel Skrich Karta Cerigabo Sanaag been ku sugannahay waa dhawahay walaal aad iyo aad baan dhawahay walaal aad baan dhawahay su'aalo kaftana ayaa waxa fududeysay shirkadda safar salaama oo caan ku ah socdaalka gobolada Sanaag iyo gobolada kale bal ka waran adeegyada shirkaddu idin qabato runtii adeegyada shirkaddu qabato anigu kulay nin ganacsada baan ahay hadir muddo iyadan runtii ku xidhnaa waa shirka aanu aad iyo aad u soo dhaweynay xagga aaminnimada iyo degdegsiimaha iyo shaqada degdega marka runtii aad baan u soo dhaweynaa shirkadda safar salaama waxaan ku bilaabayaa su'aasha bal intaad Cerigabo joogtay ama maadaama nin Cerigabo tahay waxyaabihii kugu la yaabka badnaa ama kugu qosolka badnaa qof jacayl aad wadaagaysan aad kala kulantaa wallahi runtii waxa igu la yaabka badnaa muddadii aan shaqada bilaabin intii aanan ganacsada ahayn runtii gabadhaan u sheekaysan jirnay professionalkayga markii ogaatay markii hore jacayl baana dhex maray markii dambe waxaan u sheegay inaanan wax hanti aanan ahayn reerkoodana aanan dooni karin
sidaa daraaddeed waxay go'aan ku gaadhay inaan wax professionkii jacaylka oo meesha ka baxo taana waxaa kaliftay dee waxaynta waxaan leeyahay habluhu waa inay fududeeyaan mustaqbalka iyo guurka taasaan kula talinayaa hablaha dhammaan Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa dhacay runtii dee markii hore professionkaygu wuxuu ahaa inaanu gabadha mustaqbal iyo aroos iyo aan wada gallo markii dambena waxba waan isla waayey alxamdulilah markii dambe gabadhu reer Sanaag bahayd markii dambe nin ganacsada baan noqday alxamdulilah muddo 2 sano ka bacdi waxay ogaatay inaan ganacsada ahay fariin bay markaa igu soo dirtay WhatsApp-ka waxay tir ka waran hadaynu arrimihii jacaylka ka soo wareegtay markaa 2 years baa ka soo wareegtay 2 sano anna waqtiga waxaan ahay nin ganacsada oo professionkiisa iyo arrimihiisa iyo himiladiisa gaadhay hadda xaas baan leeyahay 7 ciyaar codsigii markaa maxaa dhacay codsigii jawaabtii baan siiyay waxaan yiri Janiski ku soo maray waad ka faa'iideysan weeday hanti la'aan baad igu nacday igu diiday maantana hanti baa leeyahay alxamdulilah rabbil caalamiin marka Janis ma haya xaflad Janis maanta today baan ku yiri marka iga raalahow marka hadda wali way la soo hadashaa waxay tiraahdaa ka waran haddii si aan baqaanto jacaylkii marka waqtigii gabanaystaan alxamdulilah rabbil caalamiin marka waxaan leeyahay gabdhuhu inay soo dhaweeyaan mustaqbalka rag ayaan ku nicin wax la'aanta hanti waa la helayaa maantana ma haysid barina waad heli doontaa insha Allah magacayga Axmed Ali baa la rabaa Axmed ku soo dhaw channelka Secretary aad iyo aad baan ugu dhaw Secretary maadaama gobolkii Sanaag Ceergaab aan ku sugannahay shirkadda Safar Salaama ayaa fududeysay barnaamijkan ka waran shirkadda Safar Salaama adeegyada ay qabato ama waxyaabaha ay kaga duwan tahay shirkadda kale horta waxay kaga duwan tahay isla maanta aad baxaysaa mar dhowna waxba joogtaa Hargeysa marka waxaan ka garaysanay gawaaridii waaweyn ee waraadada aan raacinay baan ka garaysanay shirkadda Safar Salaama aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u leenahay ganacsiga mid ka badan ha keeneen si magaaladu ula qabsto dunida horumartay adood ma su'aal kaftan ku weydiinaya luqadda maakhriga waxyaabii kugu qosolka badnaa intaad Ceergaabo joogtay aad aragtaa mad la kulantaa waxaa ka mid ahaa hadda koor baa wiil ka yimid Abu Dhabi baan soo raacnay maqaxay baan nimid ma dhoobe waxay ku raadeen warni markabkan ku soo degay muxuu ahaa kaalay maad naga qayb gelinay markabka soo degay inaan xamaalinta noqono waxyaalihi qosolka badan ka mid ahaa markabku waxa weeye qofkii la socday dabada ka yimi bay waxay leeyihiin markabkan kula socday ma shaxaad ma wax laga siinayn ma kaliya baa iska wataa marka kaas ay ugu qosolka badnaani waxa dhacay anigu waan fahansanaa ma garanay ninkii baa yiri Ceergaab ma tigad beelada waxa markabku soo degay ma loo baan ku labaadiga kaas ay ugu qosol badnaa waxa la yiraahdaa Sharmaake Maxamed Cabdi Sharmaake soo dhaw channelka Secretary waan ku dhawahay maadaama gobolkii Sanaag aanu joogno Ceergaabo su'aalo dadka weydiinaa shirkadda Safar Salaama barnaamijkan fududeysay ee socdaalka gobolada kale ka waran adeegyada shirkaddu idin qabato adeegyada shirkaddu noo qabato aad baa looga raystay baabuurtii la sugi jiray wiiga maxaan ku raadayay markaad subaxii baxdo habeenkii wax joogta Hargeysa marka aad buu fiican tahay Safar Salaama adood ma shirkaddu adeegyo kale soo kordhisay su'aashan ku bilaabaya oo su'aal kaftana maadaama nin reer Sanaag aad tahay Sanaag waxa ka jirta luqad leedahay maakhiri runtii waxyaabii aad ugu soo joogtay ama ugu qosolka badnaa maakhriga waxa weeyaan kulli anu waxaan u haystaa maxaan ku dhahay ilbaxnimadii ay gobolada ka horeysay Sanaag xeebaheeda waliba xiis iyo maydh marka taas aanu haystaa inaan maakhri kale si kala ahayn way su'aal kale aan doonaynaa inaan ku weydiiyo hadaba Allah xidha arrimaha jacaylka runtii waxyaabii kugu la yaabka badnaa ama kugu qosolka badnaa jacayl kala waxay ahayd maxaan ku dhahday maray Hargeysa tagi oo inaan aan la yar sheekaystay maxaan ku isku fiicantii jacaylka waan isku fiican hadda waan ka yar weynaaday kowde inanta la sheekaystay waxay tiri wala isla tagaa wax la tagaa meel kale oo leedo Arabsiyo ha waalidka ayaa abhaan ma joogin waa joogaa laakiin tana ka fududo caawa waan wada joognaa marka maydayada tiri marka arrimaha jacaylka wax aad u xum iga soo marin ma sha Allah marka maxaa dhacay wixii ka dambeeyay hawlaha iyaga dhameysan Farxaan Ismaaciil Farxaan Ismaaciil oo ku soo dhaw channelka Secretary oo ku soo dhaw walaal ma santaad aad iyo maadaama gobolkii Sanaag aanu joogno Ceergaabo su'aalaan ku weydiinaa shirkadda Safar Salaama ayaa barnaamijkan fududeysay ka waran shirkadda Safar Salaama waa shirkad socdaalka gobolada kale ee wadanka isku xidha iyo Ceergaabo marka waran shirkaddu waa noo fududeysay xagga socdaalka dadkiina waa noo kala fududeysay waa shirkad waa u mahad celinayna shirkadda su'aashan ku bilaabaya su'aal kaftana maakhrinimo luqadda maakhrinimadu caan bay ka tahay gobolka Sanaag waxyaabii aad u soo joogtay ama kugu qosolka badnaa maxaa ka mid ah waxa iga mid ahaa walaal gobolka Sanaag halkan Ceergaabo ka tagay waxaan tagay meesha Hargeysa dina waxaan fariisay kabad 2 nin baan nahay dina waxaan fariisanay kabad qaad ma haysano
waxba ceergaabana waa aragto waa khayr baa laga qabaa dina kabarkii waan fadhiisan anaga waxba waxaysan dina nin baan waxaan ku nidi labadeeda sida hadalay ninka kale wuxuu yiri wana geeluna waa ma yahay ceelkiina geelu waa ma yahay dina nima badan markaa fadhiga qaadkooda haysta waxaan ku yiri ceelkiina waa qalalay nimankii meesha joogay waa naga carareen waa carareen ceelgaaba soo gashay ah waa naga carareen taasay igu la yaab badnaa way waa aad iyo aad weyn salaamay waxyaabi kugu la yaabka badnaa ee aad jacayl aad kala kulanto ama ku qosolka badnaa maxay ni wallahi waa badan yihiin laakiin simidii aan la yaabay ahayd inaan aanu wada sheekaysan jirnay oo habeenada ka mid ah soo garaacdo tiri walaal Hargeysan joogaa $5 soo dir shopping baan ku soo sameysanayaa taas ay igu la yaab badnayd marka maxaa dhacayse maxaad samaysay maxaan sameeyay lambarkii baan dansaday xawaanan haynaane ya waa deemisay lambarkii telefonkii baan dansaday ha waxaan go'aan noocay waxaan ka jacaylka lacagta baan ka booday ma garanay inantii marka meel inantii wallahi inay suuqa biibsiga Hargeysa imika ku sugan tahay waan jecelahay ya magacayga Mubaarak Maxamuud Jaamac Cabdi baa leeyahay Mubaarak Maxamuud Jaamac Cabdi abaan waarig ku soo dhawow channelka Sikri Jakarta waxaan ku suganahay sanaaga Ceerigaabo waan ku soo dhaweynaa waayahay marka heestii ma ku bilaabaa su'aal baan ku weydiinayna barnaamijkan waxa fududeysay shirkadda Safar Salaama oo socdaalka sanaag iyo gobolada kale isku xidhan ka waran bar shirkadaas wallahi shirkadaas idaan waxaan leeyahay ha noolaato ana hirgasho su'aal baan hadoo ku weydiinaya kaftana waxyaabihii kugu la yaabka badnaa jacayl ama maakhirinimo oo sanaag lagaga hadlo maxaad kala kulantay maxaa kamid ah waxaan kala kulmay ugu qosol badnaa markaan gabadh leeyla la jeclaaday xamar bay ahay taas Soomaaliland ma ahayn waqtigii hore ahay anna reer Ceergaabo askari baan ahaa marka askari la xidig laabana marka ninka wasiirka maaliyadda wuxuu ahaa nin barwaanaysa u taqaanay mooyaan xaafadda Madiina aanu deganay gabadh baan laba sano sheekaysanay jirdiinka Madiina aanu sheekaysanay maalintii dambe ayaa laba dabaq hortada laga dhisay labada dabaq soo ninka dhisanaya sidii ninku u dhisanayay ayuu markay gabadho gaadhi XL wadata XL ki barga loo jiray naawa maxay baan gidaarkii baan fadhiyay ma aragtaa waxay tiri saaxiib halka dhalaayso ma aragtaa halkaas aan nin jeeboon ka helay waxaan weeyahay aniga maxay la dawacday waxay tiri yeelasug ma idee suuq inta la aroosiyo habeenkii dambe arooskii arkay barti baan fadhiyaa hadda anu arooskii wixii la yaaban ayaa waraaqiytiin bogos ku jirtay iyo lacag aad badan marka dollarkan lama ogoleen beriga in la qaato dibadna wixii baan akhri warqadii baan ku jawaabay waxaan idhi marka hees baan ugu sii jawaabay gabadhii maxay markaa iyada hadallada ay ugu tiri baan gabadhii ku nacay jacaylka horta ku baabaay wuxuu ku baabaay warqadda ay soo dirtay sababtoo ah waxay tiri nin jeeb weyn baan helay adiguna aniga leedahay u fiirso hadda anna waxaan haddaan anigu laan lahaa ninka ila ka lahaan lahaa jacaylka waa baabaay jacaylka halka ku baabaay warqadii baan ku celiyay marka waxa hees marka warqadii u diray lacagtana waan diray lalabka iyo xanuunku yeeladhan waxaan la lalayaa lugooyada ay gaadhay la yaab malaha leelay inay laba bogorso laada jacaylkooda doq lacag ahaade laba dabaq nimaan degin caada hawada sare laacdamaya mooyaa haween lama caweeyaan ninka luudinaya leel daran daraadi anna laabta ka jaleerka caashiqa laxoor laba farsan kala barbar fanaaninka daran leeyla heesaas aad waqti ma garat ad baad ma hadsan tahay ad baad soo waxad ka samaha mid kala jirti Ceergaabanim haddana daalme leeyahay dalxiis la yaasay daalan gabar ka jeclaa anu hawshoodo nijaara ayaa haddana akhriga ugu bilaabmay nimadii baa bilaabay akhrimadii Ceergaaba bilaabatay dabada gabadha baa isku haydir aabaheed marsi lacagtu u geey aabaheed baa marka meeshta galay waa dhintay halkii baan marka aniga soo noqday la odaygii bay dhimay waxaan la hadlay waa garan waa gibigaba dabada yeesi baa samiyay gabadha waxaan ugu nama meed baa halka ayadoo maraysa gaadhida iyo halka taagan baa la hadlay xaga socota meed baan ku socdaa hees halkaas ka sameeyo meesha loo dalxiisiyo meed ma gaari karaya bise waan ismaqiiqa macna ma laha buurtii meeshii banaan bar ma bla sii mutahiya miyaan karinta dhaafaa miyaan rugaba gaara xirmo dhaafaa wuxuu bay hor joogay markii aan buurtii dhaafay hoos u daadagay barti sheekhu yaaliyo magaalada markaa tagay mayd qudbigiisi weynaa meeshaan ku kulaniyo macnihiya sanaag macnihiya jacaylkii shakadii macaanay mayd ma ilowdaynayay oo bedela haddana
magaxyaas labada handana u tiriyay markaasaan iyadii baan haddana mid labaad u sii qaaday san may tegi sula qoosoonahay ku nooshahay sabe ceergaabo iyo sanaag bay yidhaahdaan suruud baa agteeda ah sinta shiiqiga yaal meedh baa laga siyaartaa maxamed dhacdaani way cabdiraxmaan ku soo dhaw channel security aad baan ugu dhawahay nin aad u dhalinyaro baad runtii dadka ka qosliya ku dhawaysaa way aad mahadsan tahay maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada gobolka sanaag ceergaabo oo ku soo dhaweynaa marka koobaad gobolka weeyash ku soo dhawaan ku leenahay gobolka taariikhda gobolka uduga sharaf iyo karaama allah ku sharfo su'aalan ku weydiinaa kaftana oo aan ugu talagalay ceergaabo inaan weydiino shirkadda safar salaama fududeysay barnaamijkan ka waran adeegyada shirkadda safar salaama idin qabato maadaama shirkaddu ay tahay shirkad isku xidha gobollada kale maxaa ka والله runtii shirkaddan safar salaama haddaan nahay bulshada reer Ceergaabo runtii waa shirkad aad uga shaqeysa gobolka Hawiyasha marka waxaan leenahay shirkadaasi shirkadaha kale sida Daala Group iyo shirkadaha kale ee gobolada ka shaqeeya wayna shirkadaasi ku dayda ma leenahay waa shirkad aad u shaqeysa arrimaha bulshada aad uga shaqeysa bulshadana runtii si fiican ugu adeegta marka waan soo dhaweynaa shirkadda su'aal kaftan ku bilaabaya wal qali waxa jirta luqad Ceergaabo iyo Sanaag area caanka oo loo yaqaan maakhri waxyaabii kugu qosolka badnaa ama kugu leebka badnaa maakhrigaas Ceergaabo kullu ku badan yahay magaalada Ceergaabo runtii su'aalaha la yaabisay waxa weeye qofka labada qof ee runtii maxaan ku raadayay labada qof ee dhalinyarada oo kale marka qof ay qof shaxaadan ama qof waxsiyo kale marka qof lacag wada diro mid kamid lacagta hungureeyo ayaa waxa kamid ah su'aalahaasi waad loogtay lacagta waad ku soo loogtay marka su'aalahaasi waad loogtay iyo qombo baa tahay qombo oo macnaheedu waxa weeye wixii la wada siiyay baad qarsatay weeye marka bahalahaas aad caan bay ku tahay Ceergaabo baasha walaal magacayga waxa la yiraahdaa Cabsaaq Sugulle Sigiriya Sakaarta oo soo dhaweynaya adiyo xirtaada barcan nooga timi runtii waxaan leeyahay gobolka soo dhawaada hanaga maqananina nagu soo noqnoqdaan in badan baan soo dhaweynaynaa Cabsaaq Sugulle aad mahadsan tahay saad nagu soo dhaweysay gobolka Sanaag ee ku soo dhawow channelka Sigiriya Sakaarta reer Sanaag su'aal aan weydiinay oo waxaan doonaynaa su'aal ku weydiino barnaamijkan waxa fududeysay shirkadda Safar Salaama bal ka waran gobolka Sanaag gobol dheer buu ahaayo Safar Salaamana waa fududeysay bal ka runtii gobolka Sanaag runtii waa gobol aad u fog marka Soomaaliland laga hadlayo marka runtii kullu shirkadahan basasko aad bay anaga waxtar noogu leeyihiin waliba siba shirkadda Safar Salaama aad baan u soo dhaweynaynaa marka adeegyada waxa kamid ah in aan ku tagi jiray sanadii hore oo kale $50 ama $60 balse iminka $20 ama $15 aan ku tagno taas kamid ah shirkadda Safar Salaama dad ma shirkadu adeegyo kale soo kordhisay su'aashan u gudagelaya